laamaha ammaanka dowladda ayaa xaqiijiyay dhimashada 18 ruux iyo dhaawaca 19 qof kadib qarax iyo weerar isbarbar socday lagu qaaday maqaayadaha Bosch iyo Pizza House oo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir. weerarka ayaa dhacay abaar 8 fiidnimo wax dhiman waxaanu ku bilowday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftay inta u dhaxaysa labadaasi maqaayad. afyeenka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Maxamuud Axmed Said Carab ayaa warfidiyeenka uga warramay siday wax uga dhaceen maqaayadahaasi. waxaa u mahadcelinaa ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo xalay ilaa saakay waa barigii soo gabagabeeyay kooxdii burcadiineedkeed shabaabka loo yaqaanay dadka shacabka baabi'iyeen ee ku baabi'iyeen hoteelada Muqdisho kamid ah hotel kamid ah waxaa ku dhintay dad shacab ah oo 18 ruux ah oo hal ruux uu yahay Suuriyaan oo ka shaqeynaya maqaaxida 7 ruuxna ay tahay gabdho Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo hotelkaas ka afurayay waxaan ku dhaawacantay 19 ruux oo shacabka Soomaaliyeed ah cadawga wuxuu beegsanayaa ma aha maanta dawlad wuxuu beegsanayo ma aha mas'uuliyiin waxay beegsanayaan ma aha ciidan waxay beegsanayaan cadawga waxay beegsanayaan ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda inay baabiyaan rabaan ummadda Soomaaliyeed waxa ugu baaqaya in cadawgaas laga feejigsanaado cadawgaas loo diyaar garoobo. halkani waa isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay isbitaalada la gaarsiiyay dadkii ku dhaawacmay dhacdadii xalay ka dhacday maqaayadaha Bosch iyo Pizza. agaasimaha isbitaalka Madiina Maxamed Yuusuf Xasan ayaa inooga warramay tirada dhaawacyadii la soo gaarsiiyay isbitaalka. ilaa xalay marka hadii aan ku darno labadan waxa waaye 17 waaye dhaawacyada la keenay isbitaalka oo nasiib waxa waaye yani 8 kamid ah ay ahaayeen dhaawacyo fudud 7 kamidana ay dhaawacyada ahaayeen dhaawacyo qalliimo u baahnay oo howlgal aan ka sameynay stable waa no fiican yihiin waa xaaladooda okay waaye mid kamid ah kuwii aan seexinaynay ayaa aad iyo aad yani dhaawaciisa si baan ay u dhaawacnay waa dhintay waxa jiro cadad oo dhimasho ah oo ayagana qaybta meedka la keenayo laakiin wali tirakob oo intay meedka yihiin ma hayno wali. ugu dambeyn laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo gabagabeeyeen weeraradii lagu qaaday maqaayadaha Bosch iyo Pizza House oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxayna dhacdadani ku soo aaday iyadoo ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo. Maxamed Cabdinaasir Ayaanle Universal TV magaalada Muqdisho.